بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhageystayaal meel kasta joogtaan soo dhawaada insha Allah waxaan rajaynayaa nabad qabtaan hal qodob ayaan barnaamijka kaga hadli doonaa ilaa maanta ilaa xalayna aad baraha bulshada loogu falanqeynayay dadka muwaadiniinta ee si khaatumo ee xaq u leh inay ka hadlaan arrimahooda iyaga u gaarka ah qaarna waa cadowgii oo doonaya in ay maalintan 25 bisha in ay suurad xumeeyaan ugu horeyn waxaan idin xaqiijinayaa xog rasmiya in markaan la xiriiray dawladda kadib markuu madaxweyne fadhiyo xalay ka sheegay warbaahinta mar uu ka qayb galay munaasabadii ballaaneed ee abwaan jaamac kadib buugiisii lagu dahfurayay in ay 25 bisha ay xusayaan marka dad badan baa aragtiyay kala duwan qabay aad baa warbaahinta loogu falanqeeyay waxaan kamid ahaa inuu ragga aadka uga soo horjeeday arrintaasi hadda ka hor barnaamij baan kaga hadlay wax 25 bisha la yiraahdo oo la dabaaldegi doono ma jiri doonto ilaahay fadligii waxaan idin xaqiijinayaa in madaxda khaatumo ee xukuumadda iyo madaxweynuhuba maanta ay shir yeesheen muddo dhowr saacadood waxaana la isla gartay maalintaas inaanay waxa weeye wax dabaaldega aanu jirin dhowr arrimoodba kow horta deena hal maalin kaliya ma aynan guuleysan reer SSC khaatumo bulshada reer SSC khaatumo bulsho halganka taariikhda Soomaaliyeed ku suntan weeye dagaalo badan bay cadow iyo shisheeye iyo mid sokeeyaba ay la galeen dhammaantoodna guulo waaweyn bay ka soo hoyeen marka in la weyneeyo reer yar oo door ah oo hadii la ku leeyahay waxa weeye sameeyad yar maalintan waxa weeye aynu isbiya raacinay arintaas wax weyn ma mid kale dhaqanka Soomaaliyeed xitaa ma khalad weeyday in dad Soomaaliyeed oo hadii la ku leeyahay dagaal dhaxmaray oo hawa kala adkaadaan in la weyneeyo taasina dhaqankeena wax wanaagsan ma aha dagaalada taariikhaha adduunka ka dhacana maalin gooni lama xusee taariikhdooda lagu xusaa laakiin wax maalin gaar ah inuu sameyn karta ma jirto anyway dawladda Britain war bay soo saari doontaa ay arintaasi ku joojin doonto ma jirto dabaaldeg dhici doona maalinta 25 bisha dadka qurbo joogta ee xafladaha ku hawlan arinta gaadho wali waxaan codsay muuqaalkayga inuu gaaro dadka reer SSC gudaha ku nool sidoo kale waxa ay maalintaasi dawladdu madaxweynuhu iyo xukuumadduba ay tagi doonaan jiidaha hore insha Allah waxaan waqti la qaadan doonaan geesiyaashii naftooda horeyaasha ahaa ee dadkan iyo deegaankan iyo maamulkanba u soo halgamay iyaga la dhiirigelin doonaa iyaga mudnaanta leh wax dabaaldegaysa oo dhici doona oo lagu weyneenayo maalintaasi ma ay jirto heerka yar nasabada yar dawladda baan isdul jirtay waligeena anaga ka adkeen ilaa xaaway aadan anaga ka adkeen iyagoo Ingiriis la socdaan online oo cagta marinay koofil oo ah ninkii boqorada Ingiriiska ay ku dhaaran jirtay wiilashii qoorto xiray anaga weeye waxa weeye gumeystihii Ingiriiska ee san cadaalad dhulka Soomaaliyeed ku cidda kaliya ee Soomaaliyeed ee ka dhigdhiiday ee la dagaalamay ee u bacdigay adar wareerkayga weeye runtii marka la xuso leenta cid wadaagta ma jirto marka kuwii iyagoo macal Ingiriiskooda wata aan cagta mariyay ee aan istul saaray 25 bisha inaan weyneeyo runtii ma qabo wax wanaagsan ma aha waan arkay qoliyo badan oo isaaqa suurad xumeynaya maalintan 25 bisha waxaan leeyahay waa halkii islaantii suuqii carruurta lagaga dhalay ee 10 carruur lagaga dhalay markii dambana dib u cayday toos waxa weeye carruur baa lagaga dhalay suuqii lagaga dhalay bay dib u cayday isaaqada marka meesha lagu cayrsaday ee lagu jabiyay bay doonayeen inay suurad xumeeyaan taariikhaha lagu xusi doonaa waxa weeye wax la qarin karana maaha maalinka jabka cadawga gaaray mana suurad xumeyn karaan arinta kale aan rabaa inaan xuso waxa weeye dhulbaanta weligii lama gumaysan ha tusaale kuwa markii hadii la ku leeyahay Ingiriiskana protecting may noqon oo nabad ilaalin may saxeen taa bedelkeed oo wala dareereenba dawladihii Soomaaliyeed mid daabkeeda hayay 15 sano ee ay ku celceliyaan laas anoodna waraani laas anood cideega haysatay waxay ilmaadareeday bahaayeen meel kale hadooni 2007 cidii keentay adeeraday bay ahaayeen oo hor booyisay conflict dhul bahanta ka dhac jiraan
ayay idoor ka faa'iidaysteen hadda foogta ma waxay la tahay isaaqoo iska soconaya baa dhul carra dhul bahanta qabsan kara war Soomaali maanta 30,000 oo wiil oo naftooda hurayaala oo cabsiya war cid la yeeli kara waa reerkayga weey waxa weey laas aanu cid joogtay ee aanu kula dagaalanay markii dambe waxay ahaayeen waa horgolo annaga nala hayb ah 15 sano cid joogtay ee nimanka meesha ku haysay adar waa la garanayaa waa dhul bahanta haayeen laas aanu iyo carra dhul bahantana ku hayay waxaan leeyahay arintan 15 sano ayaanu dhul bahanta dhulkiisa joognay oo dhul bahanta kale la dirirsan baa joogay laakiin isaga kaliya iska soconay dhulkayga yimid ama imaan kara ma aysan jirin waxa taas dilin kuwa dagaal baanu galay 2010 iyo 2012 buu hoola isku dayay qabsada wixii kaga dhacay waa la ogaa isaga aan cid hogaaminayn oo aan cid hor socon karshaalahay maanta xagee joogaan weligood maanta marayaan maalinta dagaal ku dhacay inay doonayeen buu hoola carrad dhul bahanta qabsadaana karshaalay marayeen masaafada inta la cid jartay ee waxa way aakhira ka xadhay israakiishoodu leysay ee hubkoodu burburisay ee waxa way aakhira ka xadhay dhul bahanta yahay oo dhul bahanta ma dhameen dhul bahanta reer hawd buu ahaa kuwa waxa way dhul bahanta kharashaadka dhaqaalaha iyo saanada bixinayeen marka reerkan dhul bahante war cid ka adkaan ka dama jirto waxa way anaga isaaq reer yar oo nasabad yar waraanu saarigsanay oo aanu taariikh xun ku dhignay sagaara ma ka qaadnay way maalintan 25 bishana maalin la qarin kara maaha oo maalinkii hubkii 30 sano ay dhaqayeen ee ay maamulayeen ee ay ku faanayeen ee ay ku hadaaqayeen gacanta ku dhignay way marka waxa way dadka reer Khartoum waxa leeyahay cadow badan baa leediin abwaan jaamac kadina uu idin sheegay maliyun cadow baa leediin maliyun cadow ayaa leediin reer yar weligiin ka adkaan jirnay ilaa xaawi aadan ana ay door ka adkeen waxba liminaha ka dhaganina oo ninkii jiray gudunay hadaan barkay kugu jirin inaad goyseen war hadaan kuwa aniga iga dhashay oo waxa weey hadii la ku horgala ah oo dhul bahanta dhaxdiisa conflict ka dhax jiray ka carooday war haday soo horboodeen ma aha inaan anagu hadii la guurayay xoog awood ku tabadan carra dhul bahanta ma ku imaan kartaan oo ogtiin ha bal su'aal baan ku weydiinaya markii 6 February ee dhul bahantii idinka idila socday iyo idinku aad kala baxdeen oo ku idinka idila socday anaga soo raaceen maxaa dhulku soo joog weydeen maxaa carra dhul bahanta u soo joog weydeen haddaan dhul bahanta idinku hayn oo kuwa horgolaa oo dhaqlayaala oo dhul bahanta ay carra dhul bahanta idinkeeni maxaa dhulku soo joog weydeen awooda la heeday mee awooda 15 sano ku faanayseen waa la carra dhul bahanta ku haysanay meel markay rag soo jahay waxa la isaaq inta nabada kugu yeelan qolaada kugu ma yeelan waarkay ayagoo idin ka dhiganaya iyagoo isbihibinaya sheela ta ka bisha waa sheela ta ka bisha maanta lagu qofsado way Soomaali ma dhicin taariikhda lagu dhigay in lagu dhigay ma jirto waryaha markii ugu horeysay wali ma arag nin askariga oo qorigiisa ka carray oo kaliisa gacmaha ku qaatay taariikhda wali ma dhicin 300 oo tikrinka waan ku haynaa 300 oo tikrinka oo hubkooda aan gacanta ku dhigna 500 oo wiil oo waxa way saraakiil 30 ay garbacas tahay oo ninka ugu yar uu yahay hadii la ku reeyay gaashala dhaxe baan gacanta ku haynaa saraakiilaha hoose ha sheegin askarta ha sheegin la iyo bro yargeysa waa tay kar maalintaas nimada iyo Soomaalinimada ilaalina marka ninkii waxa lagu sameeyay damaanta inuu baano oo ilaalin dhul bahanta waxa way aniga xorriyad iga qaatay wada waxaas af nool u hadlaa Soomaali u tiraada war wax la gudeeyay oo nasabad yar cidda ah waa idinka weyn 2004 diyaaradii saarta Hargeysa oo leeyin daarad baan xasuuqay oo leeyin morga baan xasuuqay 2004 leeyin tuka waxa weey xasuuqay 2004 leeyin waxa weey gaani baan xasuuqay daarada war anagu xaasha wajid gobonimada ka raacnaa waxa weey maalinta gooja adashay 20 noogama duwana maalmihii aanu ka shaalay ku jabinay maalmihii idinka Ingiriisku ay suwateen aanu idin jabinay noogama duwana liminaha ka dhaxraadinina dadka reeraysa Khartoum waxa leeyahay war umada ay nasabada yar waqti iyo chance dowladnimadeena inuu ku faano nidaamkeena inuu ilaalino madaxdeena inuu ilaalino maliyun cadow baa leedahay mid sokeeye iyo mid sheeyaba u toog hayataas insha Allah ta'ala
dowladuna war fiican bay soo saari doontaa berito maalintaas 25 maalintaas ciidanka la dhiirigelin doonaa furimaha ay tagi doonaa ciidamada geel loo qali doonaa waxa weeye hadii la kurgeesiyaasha ay cadawga jibiyay ee ku dhisantahay Khaatumo maanta kuwaas oo dhiirigelin laakiin xaflad qurba ka dhici karta iyo xaflad gudaha ka dhici karta diyaarin karta ma jirto ninkii lagu sawiro hawsha ka shaqeeyana waa nin doonaya inuu taariikh sumcad xumo in dadka deegaanka ku dhawo marka intaas aan ku soo gabagabeynaya xaaladdu waa safe way dadku haysdajiyaan guriga gobonimo insha Allah khayr